waddankeenu wuxuu ahaan jiray waddan dhir leh oo kayma ah oo xayawaanka oo dhammi ku nool yahay oo maxaa la yiraahdaa geed walba oo adduunka jira intiisa badan ay ka baxdo ee climate-ka maaragtay ka bixi kara laakiin waddankeennii isticmaalkii bulshadeenna oo aan ahayn isticmaal wanaagsan ayaa sidan u galay ma garanayo dhalinyaro badan inay ka warhayso laakiin waxaa dhici jirtay dhirta sideeda waxna waa lagu ootaa siyaabo kalena waa loo isticmaali jiray xataa waxaa dhici jirtay xilliyadii hore oog wax la yiraahdo oo ah qofkii xoolo ka lumaan inuu kob weynaatay dab geliyo si maaragtay kobtaasi ay u ifiso arradoo dhan oo markaa uu habeenkii baadidoonkiisa ugu galo ayuu kob dhan wuxuu surayaa dab surayaa ama qofkii wax ka habaabaan ama reerihii kala habaaba ayaa oog shidi jiray markaasay oran jireen reerkii dadkiina ka habaabay xaggaasay joogaan aynu aadno sidaasi waxay keentay isticmaalkaasi aan fiicnayn in dhulkeennii uu nabaad guur noqdo oo uu dhir la'aan noqdo magaaladan Garowe magaceeda sida ka muuqata waa garow waa geedka quraca ah ee gaagaaban oo siman bay lahaan jirtay oo aan maaragtay aad u adagtay la dhex maro laakiin maanta waa u jeedaan waa dhul saxaara ah toggeena kan Garowe ama Jamaqarsho wuxuu ahaan jiray tog leh dhir waaweyn iyo dhir yar yar iyo dhuur iyo wax badan oo maaragtay dhir u lahaan jiray laakiin sidii loo jaranayay sarab looga dhiganayay waa waxa togga dhinaciisa carishada ka dhisan iyo dhirta ka dhisan iyo dareedaha ka dhisan lagu dhisay weeyo wala baabaash intii soo hartayna haddeer aad aragtaan in gacanta lagu hayo oo geed quwaaxiina la siibayo geedkii weynaayo oo damalka ahaana dhuxul laga dhigayo oo xataa waxaan taariikhda hore u dhicin ayaa sanadka nugaal ka dhacay markii dadkii ay ka hayaameen ay cidlowday geedgeedkii quraca ku yaalay dad baa intay gaadiid ula tageen oo gawaari ku dhufteen markay qalaleenna jarjareen waxay ka dhigteen dhuxul dalkan marka waxaa biiyey dad qaabka ay u fakarayaan iyo aqoontooda iyo garaadkoodana halkaa gaarsiisnaa hadda innagu waxaynu nahay jiilkii soo gaaray dalkii oo liita oo maaragtay dhir yar oo isbedeshay maxaa la yidhahdaa cimiladii oo roobkii ku yaraaday oo maxaa la yidhahdaa daaqii ku yaraaday hadda xoolihiina ku bateen haddeer marka abaar joogta ah ayaa dabada la isu geliyey waxaasna waxaa sababay wixii ay bulshadaasi ay iyadu geysatay oo gacanteeda u geysatay bimaa kasabat aydi nnaas waxaynu u baahannahay marka inaynu isbeddel samayno